Bismillah, walaalayaal kusoo dhawaada fiidiyogeena. Maanta waxaan kaga hadli doonaa Tobonka Jasiirad ee adduunka ugu weyn. Soo kaalinta tobnaad waxaa ku jirta jasiiradda Ellesmere dalka Canada, iyadoo dhulhaan ku fadhida jasiiradani 196,236 kiiloomitir oo laga jibbaar. Jasiiraddan Ellesmere waa jasiiradda saddexaad ugu weyn dalka Canada, iyadoona tan tobnaad ee ugu weyn dunida oo dhan. Waxay ku taallaa gobolka Nunavut ee dalka Canada. Jasiiraddan oo dhan waxaa ku badan buuraha iyo barafka. Waa gobolka ugu buuraleyda badan ee jasiiradaha Arctic, iyadoona ah jasiiradda ugu barafka badan ee isla dalka Canada. Kaalinta sagaalaad waxaa ku jirta boqortooyada Ingiriiska, oo dhulhaan ku fadhida 209,331 kiiloomitir oo laga jibbaar. Waa jasiirad ku taalla waqooyiga galbeed ee qaaradda Yurub. Waa jasiiradda ugu weyn ee qaaradda Yurub ee maaha dalka ugu weyn qaaradda Yurub. Boqortooyada Ingiriisku waxay ka kooban tahay 4 gobol oo isku tegay, iyagoo kala ah England, Scotland, waqooyiga Ireland iyo Wales. Jasiiradda sideedaad waa jasiiradda Victoria ee dalka Canada, iyadoo ku fadhida dhul dhan 217,291 kiiloomitir oo laga jibbaar. Jasiiradda Victoria waa jasiiradda labaad ee ugu weyn jasiiradaha Arctic ee dalka Canada. Jasiiradda Victoria sidoo kale waa jasiiradda sideedaad ee ugu weyn dunida. Waxaa jasiiraddan helay Thomas Simpson, saynisyahannadii Arctic, sanadku markuu ahaa 1838. Jasiiraddan oo loogu magac daray boqortooyadii dalka Ingiriiska ee boqorad Victoria. Jasiiradda toddobaad waa jasiiradda Honshu ee dalka Jabbaan, iyadoo ku fadhida dhul baaxaddiisu dhan tahay 225,800 kiiloomitir oo laga jibbaaran. Jasiiraddan waxay u dhaxaysaa badweynta Basifiga iyo badda Jabbaan. Jasiiraddan Honshu waa jasiiradda ugu weyn dalka Jabbaan. Jasiiraddan Honshu waxay leedahay muhiimad badan oo taariikhi ah. Waxay tahay dhul-baaxeedka dalka Jabbaan, taasi oo ah guud ahaanba 60% dhulka dalka Jabbaan. Jasiiradda Honshu waxay hoy u tahay qaar ka mid ah magaalooyinka muhiimka ah ee dalka Jabbaan, oo ay ku jiraan caasimadda dalka Jabbaan ee Tokyo, magaalo madaxdii hore ee Kyoto, magaaladii uu Mareykanku ku garaacay bambooyinka halista ah ee atomic bomb-ka ee Hiroshima. Sidoo kale magaalooyinka Yokohama iyo Osaka ayaa ku yaala. Jasiiradda lixaad waa jasiiradda Sumatra ee dalka Indonesia. Waxay ku fadhidaa dhul baaxaddiisu dhan tahay 480,848 kiiloomitir oo laga jibbaar. Jasiiradda Sumatra waa jasiiradda labaad ee ugu weyn dalka Indonesia, iyadoo ah jasiiradda lixaad ee ugu weyn dunida. Sidoo kale waa jasiirad ku taalla galbeedka jasiiradaha dalka Indonesia. Jasiiradda Sumatra waa qayb ka mid ah jasiiradaha Sunda ee dalka Indonesia. Jasiiradda shanaad waa jasiiradda Baffin ee dalka Canada. Waxay tahay dhulhaan 507,451 kiiloomitir oo laga jibbaaran. Jasiiradda Baffin waxay ku taallaa dhulka Nunavut ee dalka Canada. Waa jasiiradda ugu weyn ee dalka Canada, waana jasiiradda shanaad ee ugu weyn dunida, waxaana loogu magac daray saynisyahannadii Ingiriiska ah ee William Baffin. Jasiiradda tani waa jasiirad cimiladeedu aad u qabow yahay. Waxaa sidoo kale jira gacmo badan iyo harooyin badan oo ku yaala jasiiradda Baffin. Jasiiradda afraad waa jasiiradda Madagascar. Waa jamhuuriyadda dalka Madagascar, waxayna dhulhaan dhan tahay 587,713 kiiloomitir oo laga jibbaaran.
Jasiiradda Madagascar waa dal ku yaala xeebta bari ee qaaradda Afrika ee badweynta Hindiya. Jasiiraddan waa tan afraad ee ugu weyn dunida. Jasiiradda Madagascar ayaa waxay khubaradu aaminsan yihiin inay ka go'day dalka Hindiya in ka badan 88 milyan oo sano ka hor. Jasiiradda tani waxay hoy u tahay noocyada badan ee dhirta iyo xayawaanka. Jasiiradda Madagascar waxaa kaloo loo yaqaanaa laguna naanaysaa sida qaaradda sideedaad ama dunida kale. Jasiiradda saddexaad waa jasiiradda Borneo ee dalka Indonesia, Malaysia iyo Brunei, iyadoo dhul ahaan ku fadhida in ka badan 748,168 kiiloomitir laba jibaaran. Jasiiraddan Borneo oo ku taalla galbeedka bartamaha badda Basifiga waa jasiiradda keliya ee dunida laga maamulo 3 dal, kuwaas oo kala ah dalka Indonesia, Malaysia iyo Brunei. Qaybta ugu muhiimsan ee jasiiraddan uguna weyn waa qaybta dalka Indonesia. Jasiiraddan Borneo waa tan saddexaad ee ugu weyn dunida, waxayna ku fadhidaa dhul ahaan ku dhawaad 2 jibaar dhulka uu ku fadhiyo dalka Jarmalka. Jasiiradda labaad waa jasiiradda New Guinea, Indonesia iyo Papua New Guinea. Waa dhul dhan 785,753 kiiloomitir laba jibaar. Jasiiradda New Guinea ee galbeedka badweynta Basifiga waa jasiiradda labaad ee ugu weyn dunida. Jasiiradda New Guinea waxaa maamula 2 dal. Qaybta galbeedka waxaa maamula dalka Indonesia iyo qaybta barina waxaa maamula dalka New Guinea. Kaalinta koowaad waxaa gashay waa jasiiradda dalka Greenland oo ku fadhiya dhul dhan 2,130,800 kiiloomitir oo laba jibaaran. Waa jasiiradda ugu weyn dunida, waxay u dhaxaysaa badweynta Atlantic iyo Arctic Ocean. Jasiiraddan Greenland waa dhul bannaan oo in ka badan 80% ay maamusho dowladda dalka Denmark. Jasiiraddan inta badan waxaa daboolay baraf, waana tan labaad ee dhulkeedu ku badan yahay baraf marka laga yimaado qaaradda Antarctic. Sidaas darteed, jasiiraddan waxaa keliya ku nool dad gaaraya 56,483 qof oo ruux.